walaal dar ilaahay u caawi waa 4 qof oo walaala oo 4tuba ay naafa ka yihiin lugaha isla markaasina ayna awoodin inay shaqo tagaan waxayna ku nool yihiin guri ay bar tahay aqal Soomaali barna ay tahay jingad kaasi oo waqtiyada qabowga iyo waqtiga ay cadeedu kula shahayba ay dib kala kulmaan sida ay noo sheegeen waxayna u baahan yihiin walaal in la kaalmeeyo ilaahayna wuxuu yidhi markaad dhulkaas ka naxariisataan ayaana samada iniga naxariisan walaal ka qayb qaado dhismaha loogu samaynayo guri ay kaga gabadaan milicda iyo qabowga iyo roobabka marka ay jiraan waana 4 qof oo naafa ka cagaha isla markaasina ma haystaan ehel kale amba cid kale oo gargaarta walaal dar ilaahay uga qayb qaado ilaahay baa mahad leh ilaahaasan yidhi anigoo caafada qabnay hore u fiicnayn oo u lugeynay haddana dhulka na fariisiiyey ayaa mahad leh iminkana alxamdulilah wixii ilaahayna u keenay aad iyo aad baanu ugu samirsannahay waxa maanta aanu idiin sheegaynaa dadka muslimiinta oo dhan u sheegaynaa jiinkada ayaanu ku jiraa iyo maqsinkan guri Soomaaliga ah labada meeloodba dhib badan baan ku qabnaa jiinkadaasi mar way nagu daadaayo dhaxan bay yaa nagu daada marna qabow ayay nagu diishay oo xagga neerfaha ayuu aad ugu xun yahay qabowgu marka walaalaha muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa inayna soo caawiyaan oo labada maqsin ay noo dhisaan haddii wax ka badan aynu helayaana iyaga ayaa asrigaa leh walaalayaal na caawiya muslimiin oo dhan dhammaan muslimiinta caalamka joogta waan ka codsanaynaa halkaanu fadhino yaanu ku jiraa aqal Soomaaliga iyo guriga jinkada kulayl iyo qabow yaa nagu laysay marna waa qabow marna kulayl haddii roob soo doo waan baqana saqada ma keed milin atan kaana jinkad welgaano ku dhufan qofkina qaya ma ahna ku dhufnay aad baan dhibanahay ilaahan baa dhibta qaadi karaa markii hore waan soonay imka tare intaan gurguureen suulo gurguureen sidaasaan u saqnaa oo galaa alxamdulillah